السلام عليكم دمان أصحابتا ku xiran janalka xog bisil ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta oo daaran sheekooyin gaaban oo ay ka mid yihiin sababta feeryahanada waaweyn sida Mike Tyson ama Floyd Mayweather iyo kuwa kale la midka ay u leeyihiin ilaalo gaar ah. qaybta labaad waxaan ku fiirin doonaa dhanka science-ka. waxaan ku soo qaadan doonaa rah lagu arkay bartamaha iyo koonfurta Mareykanka kaasoo awood u leh inuu midabkiisa marna qariyo marna muujiyo. haddaan ku hormarno dhanka science-ka, dalka Mareykanka khaasatan bartamaha iyo koonfurtiisaba waxaa lagu arkay rah hadda sidaad ugu jeedo isla markiina aad weynayso. maalintii waxay hurdaan caleemaha hoostooda ayagoo aanan lahayn wax hoos ah. tan ayaa ka difaacda inay shimbiraha arkaan. marka ay hurdada ka soo kacaan waxay yeelanayaan midab brown guduud xigeen ah oo hooskiisa muuqdo. rahan waxay caan ku yihiin in iftiinku uu dhex mari karo. rahan marka ay caleenta isku ekaysiinayaan waa marka ay ammaankooda u baqayaan. markay soo jeedaan laakiin cadowgooda sida shimbiraha way ka baxsan karaan, laakiin markay hurdaan aad ay ugu nugul yihiin in la ugaarsado. sidaa awgeed waxay la qabsadeen inay isqariyaan. khubarada saynisyahanada ayaa iyagoo adeegsanaya sawirada teknolojiyadda ilayska iyo ultrasoundka waxay ogaadeen sirta rahan oo ah marka ay hurdaan inay isku soo ururiyaan ama ku qariyaan ku dhowaad 90% dhiigooda beerka kadibna noqdaan shay la iska dhex arki karo. waxaa kaloo ay ururiyaan oo meel isugu keenaan unugyadooda dhan. sida ay sidan u sameeyaan iyo sababta aynan u dhimanaynin iyagoo dhiigoodii iyo nugyadoodii meel isugu keenay weli waxba lagama ogaan. haddii la barbar dhigo xayawaanada kale ma awoodaan inay dhiigooda dhan beerka isku keenaan saacado badan, taasoo ku sababi karta in dhiigga wada xinjiroobo oo ay dhintaan ama halis caafimaad ay galaan. si kastaba rahan taasi dhibku maaha oo waaba sida uu nool yahay. ugu dambayn, cilmibaarisyo badan oo dheeraad ah oo lagu sameeyey rahan ayaa daaha ka rogaysa in la helo daawooyin caawiya la dagaalanka dhiig xinjirowga kaasoo bini'aadamka aad halis ugu ah. sheekadeenii labaad ayaan isla soo gaarnay. haddaad nagu cusub tahay videoga like saaro ama like noo saar videogan oo channelka subscribe saaro si ay kusoo gaaraan dhammaan videoyada mustaqbalka dhow iyo midka fogba. waa mahadsan tahay. maxaad is leedahay oo feeryahanada caanka ah ee dunida sida Mike Tyson, Mayweather iyo dhigooda kale ay u leeyihiin ilaalo gaar ah ama bodyguards? ugu horeyn, feeryahanada sida ciyaartooyda kubadda cagta waxay sameeyaan adduun lacageed oo aad u badan. sidaa awgeed dad waxaa jira aad uga xun horumarkooda ama lacagta ay ka sameeyaan ciyaaraha feerta ayay aad uga xun yihiin. dadkaas ayaa iyagoo noocyo badan soo wajaho feeryahanadan. mid wuxuuba rabaa inuu dilo adiga iska dilo maadaama uu gaari karayn. mid kale ayaa isku dayaya inuu garaafeeyo ama daandaansado. keliya wuxuu ka rabaa Mike Tyson ayna isdagaalay. ogowna hadduu ka guulaysto iyo haddii laga guulaystaba Mike Tyson ayaa ku ceebaysan. sidaa darteed ay feeryahanada ugu baahan yihiin ilaalo khaas ah. dhanka kale, feeryahanada ciyaaraha ay galaan waa u ganacsi. bal adiga malayso berito ayaad leedahay cayaar aad u adag. maanta ayaa midkoo kugu soo canbixi rabay feertay, laf ayaa dhaawac ka noqotay. beri ma u malaynaysaa inaad ka qayb qaadan karto cayaartii adkayd ee ku sugaysay? dabcan way kugu adkaanaysaa. sidaa darteed ay feeryahanada ugu baahan yihiin inay helaan ilaalo khaas ah. faa'iidada saddexaad ee feeryahanada ugu baahan yihiin ilaalo khaas ah waa dhanka sharciga. kasoo qaad adoo feeryahan weyn ayaad qof u gacan qaaday, waa lagu dacwaysan karaa oo weliba lagu xukumi karaa lacago aad u tiro badan. laakiin haddii ay kula socdaan ilaaladaada khaaska ah, ayagaa la falgelayaan wixii kusoo hawaysto ama kusoo hujuumo, ayagaana sharci u leh. ugu dambayn, feeryahanada waa dad aad looga sharfo dalalkooda. marka marnaba in sumcadooda meel looga dhicin, ammaankooduna la sugo waa mas-uuliyadda koowaad ee dalalkooda. intaas ayaan ku reebaynaa videogeena maanta. aad u mahadsan tahay maadaamaad like-ta noo saartay, subscribe-na saartay. ku mahadsanid. wayno videogeena xiga. bye bye.